السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال ميل ولي وجوجتان نبض إن حديث دشينها آتي كسر لواذا مقال عصب معلمه دم ببرها برشة وحسوب بدني قبل صدوبي مقالده ده أيكو ميوسيكو جاسية قبلها أنا ما أهين كوا أسطورة أم حجابك وحاسك هذا سيدنا محام مقضي قيمة بدن أجر كودا كميدا هذا هو حرام مقال كان إننا نروح الله مهمة ده إلا هاي حرشة درك وناكسن أي قبلها ما حي تصالكتها أم حي سكترجميسا waxa ay tusaale ka tahay ama ay muujinaysaa gabadha asturnaanteeda ama dharka ay xiran tahay tarbiyada aabaheeda masayrka walaalkeeda raganimada ninkeeda iyo koriimada hooyadeeda maxaa yeelay markay arkeen qoomkii Maryama bint Imraan oo wadata nabi Ciise oo yar waxay ku yiraahdeen ya ukhta Haarun walaashiisii ما كان أبوك امرأ سوء أبها ما أوصن إهين مدحن وما كان أمك بغيا هو يدانا ما أيسن إهين مدجر كده إيبسا وحي شيغين ولالكيد وحي شيغين أبهيد وحين شيغين هو يدي تاس معناه هذا وحا أي تهي وناقة قبضها وحي الله بنيسا قويس كده حدي تهي قف وناكسن قويس كده أيان نغني قف وناكسن حدي أي تهي قف حنا قويس كده أيان نغني قف حنا ساس درادي حدي قبضه أي تهي مد أسطورته oo wanaagsan waxay ilaalinaysaa sharafteeda iyo sharafta qoyskeeda intaas ka sukow gabadha asturata waa mid og in Allah subhanahu wa ta'ala ay u laaban doonto lana xisaabtami doono hadaba walaasheedii yuusan kula tagin adduunkan oo ha ilmaamin waxa maanta iyo maalinta dambe quruxda ku ah hadii aad asturata maantay waxa ay ka difaacaysaa xumaanta maantay sharta insiga iyo jinniga ku eegaya maalinta qiyaamana waxaad noqonaysaa mid fulisay awaamirtii Allah subhanahu wa ta'ala inta ay nooleed waxaad la kulmi doontaa ajarkii iyo darajaadkii aad ku shaqaysatay adduunyada fariintan waxay ku socotaa gabdhaha Soomaaliyeed meel waliba ay joogaan waad ku mahadsantahay daawashadaada gaarsii kuwa kale oo